السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر دواد جستوري تي في waxaan rabay insha Allah duu lahayn gaarsi videogan in aan nagula qaybsado su'aalo yar weydiiyey dhawaan isagana oo feedbackigii amba jawaabteedii insha Allah intaan karayo qaar inaan uga jawaabo horta kow waxa weeyaan dadkeena horta laba shayba daliil au arkina laakiin laba yar oo shay baan ka dareemay horta waxa weeyaan waxaan rabnaa ku dhanba waa wax mustacjil baan iska naho wax degdega horay inaan wixii bari mikada yar bizaag maaha oo meel xafiis la tagay oo la qaadanayo laga baxay maaha laakiin waxaan mashruucyada ka hadlaynaa wax 4 bilood ilaa 3 sano noqonaya xilligaa wuxuu u baahan yahay waa samir badan u baahan yahay iyo midda kalena waxa weeyaan waxyaabaha yar noos mar waxa weeyaan waa waxaan rabnaa aan badiga aan maxaan ku raahideen siro iziya amba fasila amba fududba inuu wixii noo haado kolkaaba aan bilowno kolkaaba dhamaado ma dhici karayso xilligan waxyaabahan la qaybsanayo waa boqolkiiba qaar waxa jira waran boqolkiiba 80 ilaa 90 waan siyaa waxa jira boqolkiiba 30 inta kalena aad ku dareysiin baa jira xilliga oo muhiim weeyaan inaad garatiin inay muhiim tahay ay qayb badan inaad inaguna ku dareysiin baa jira anuna ay tahay sida hore nigu soo sheegay wajideyn jidkeed mareyseen oo kale ma ni fudeedinaya iyo waxyaabo badan oo kolka hore aad haysan oo imika haysatiin amba waxyaabo badan oo waxa jira internet waxa weeyaan waa badweyn weeyaan xilliga waxa dhici karta in dadku ay qaar badan ka cabsoodaan ay garanayaan wixii inuu wax hubay inuu yahay in wixii lagu dhacayo dad badan oo aqnaaq lagu waxiya jira liga waxyaabaha oo dhan insha Allah waxa jirta video aan inuu sheegi doono insha Allah wixii saasii ilaalin karaysi taas la qaybsan laakiin waxa weeyaan waxaan doorto sheegayaa suuqa modeelada qaar dadka badiga fursad degdegaya aan horta samran u lahaa bahalada videoyaashna soo daawada waxa dhacda kolkol su'aalo badan oo hore uga jawaabay oo badiga lagu soo celiyaa jirta laakiin waxaan u lahaa dad fiirstiin videoyaasha qaar badan oo ka jawaaba jira oo duuyeereetin muhiimada aan wixii videoyaasha waxa weeyaan waxaan maanta bilaabay toban waxaya waxa dhacday kol in maxaan ku raadin su'aalihii la weydiin jiray ay isku soo noqdeen waa wixii bal weydiinaya xaggii bay joogtaa xilliga waxa dhici karta waqtiga ku adkaado kol dadku uga jawaabi lahayd laakiin videoyaasha waxay taraysaa qaar badan bay u fudeydinaysaa inay iclaankan ay helaan iyagoona maxaan ku raadin wax iska bedeleen waxa dhici karta duusiyaal ba jirtaan kol bilownay insha Allah oo waqtiga ku socdo dacwaduhu kale way isbedelaan waa dhici karta laakiin kuwa wajiidin karana dhibaato ma laakiin waxa weeyaan hadii aad jawaabtii hayshid waxa dhici karaysa qof walaalkaayo kale oo su'aal kale oo wanaagsan amba sida oo ma ka jawaabin aan ugu jawaabi karayo inuu u fududeyn karayso iga intaas waxaan jeclaan lahaa inaad fahantiin midda kale in rabi insha Allah aan doonay inaan sheegano waxay ahayd qaybta horta shantii qaybood ka soo hadalnay ku bilownay ahayd qaybtii ugu horeyso afar u kala kacaysay intii magaalada qofka reer Djibouti ka imanaya amba Djibouti uga soo baxay fikirkiisa amba mowqifkiisa siyaasadeed uu fudhi karin amba halkan joogay u gali karin kaas waan soo jawaabno bas waxa hadhow qaybta shanaad oo dukumeentiyashii loo baahnaa insha Allah duulahan gaarsiyo ay dhici doontaa inaan maxaan ku raahdeena kuwaasna aan dhameystiro kuwa soo socda waxay noqon doonaan insha Allah waa maxaan ku raahdeynay waxay noqon doonaan khaasatan jaamacadda Saalis ku qoro badigana horta waxa weeyaan waa talooyinkan siineen waxa weeyaan waxa rabaa horta waxa weeyaan dad waxaan nahay horta waddanku inuu iskeel yahay inkastoo iskeel yahay waxaan nahay dad dhig qura iyo il qura leh daliil haw arkina laakiin waa aragti aan iyo maxaan ku raahdeynay waa inta aan badiga dadka aan waxyaabaha ka arko weeyaan si mid ah aan aragnaa waxa weeyaan kol way fiican tahay kolna waxay iska leedahay dhibaatadeeda leeyahay waxaan anu rabay inaan wax keer bedelno halkan waxa weeyaan waxyaabaha waxa weeyaan imika hadii jaamacadaha kale suuq waxa imika badiga dadka su'aalaha weydiiyay igu soo laalaama maxay iskoolkan inaadka ilaahan ku soo celiyaan ilaahan iskoolka ma jiro Canada ka Quebec ma jiro iskoolo badan baa jira ونتوز دون إن شاء الله ونسودا سلكسيونين بس كي وضيع ومصعد الريج بتو حيابها
ay iskoolada inta u badan yihiin shaqooyinkoogu waa 5 baan soo nari 5taasina yaan dhex gelin doonaa jaamacado badan baan qaadan ilaa 20 ilaa 25 baan qaadan 25ka waan kala saari doonaa maxaan ku uraahideynay oo waan isku day insha Allah haduu Ilaahay gaarsiiyo si aad u kala baahdin oo ninba haduu kan haduu jaamacadan aad waa dhigatay kala dhigto hal kala baaho hadii kala meel qura hadaa wada dhigatiin waxa kolkol dhici karaysa in maxaan ku uraahideynay dadka kaba soo qaad dadku bilaadan waa khaldami karaa xilliga waxa dhici karaysa hadii jaamacadii kaba soo qaad 20 dhiganaysay ay saddex sida doonka aan bay ka tagaan ama waxay soo doonaan uga tagaan ama khilaaf dhaco ama wuxuu doonaa dhaco ay jaamacadii ku adkayso kuwa soo socda ay sida ahaan ay rahaan kaba soo qaad dadkaasi bis saddexda ama afarta ama shanta qof dirtood kuwii 20kii soo socday 10 sano dambe inay ka galaafato xilliga waxyaabaha sayniska ilaalin lahayn waxa muhiim ah in horta kow aad kala bahdin oo jaamacadaha insha Allah aan garanin aan la qaybsan doono maxaan ku uraahideynay in aad kula dhigatiin oo qalba mid aad iska dhigatiin laakiin horta mid kale mid faatiin haddaad waarun horta mid baa jirto badiga dadku laba meelood bay ka helaan Canada waa Quebec iyo Ontario waxa ku yaala Ontario waa province ka leeyahay laakiin waxa ku yaala waa Toronto iyo waxa ku taalo Ottawa xilliga labadaas dadku inkastoo Toronto iyo Ottawa waa English weeyaan oo badiga dadku ma dhigtaan Quebec ma lagu soo ordaa laakiin waxa jira iskoolo badan oo francophone jira provinciyaasha kale ku yaala oo dadku ay dhigan karayaan oo ka fudud oo la dhigan karaya jiro nasiibkaaga iska qaadanayso oo loo aqbali karaya jira siyaabaha loo waxeeyay insha Allah waxyaabo aan insha Allah fiidiyoyaasha kale ku deetaayinayna ma jaamacadaha ku dhama soo qaadan liga waxaan talanisiin lahaa ku kala baaha dhigta qura iyo isha qura yeelanina laakiin ilal badan iyo dhiga badan yeesha dul badan kala dhigta ha kala duwanaada haddii aan firmi aad ka dhigatiin niveau Brunswick waxa ka dhigan karaysiin Ontario comme Manitoba ba dhigan karaysiin kokol waxa jirto kale waxa dhigan karaysiin ilkro Prince Edward leeyahay dhigan karaysiin adan ilaa 13 aan hore soo aragnay waa soo midhan ba insha Allah kala dhigan karaysiin oo kala duwan midda kale nigu diray horta Canada maxaan iraahaydeen horta 800 ba ka dhigay 900 baan aamnay au arkina in maxaan ku uraahideynay horta maxaa vidiyaashan la qaybsanay meeshu ma aha am visa cidna kama yimid hadaan horey baan igu sii sheegay hadaan awood leeyahay dadkayga ku dhama soo qaadi lahaa fahmaysi laakiin waa la kala nasiib badan yahay waana kala dadaal badan yahay waana la kala maxaan ku uraahideynay samir badan yahay xilliga waxa weeyaan haddii ay dhici weydo koow oo horey ku deydeen visa-ga ku labaad dhigta ku saddexaad dhigta ku afraad dhigta ku shanaad dhigta nasiibkiina waqti uu nasiinay oo maalin un baa la helaysiin oo taas waan huba oo qof wal oo isku dayay oo u samray uu iman karaya meesha hadafka ugu weyn ee laga leeyahay halkan horta dadkeena badiga inkastoo dhibaatooyin badan imika naga keenaan dhulkeena laakiin hadafka ugu weyn horta waa laba waaweyn yaan ka leenahay waxa weeyaan waa shaqo iyo san waraaqado passport u heli lahayn horta shaqadu waxa weeyaan Canada waa maalintaad airport ugu soo dhaadhacdidba waxa ugu horeeya ee ugu fudud la helo horta waa shaqo permidaada waa kali waana shaqeyn qof wal oo Djibouti badiga hore waan igu soo sheegay vidiyaashada waxa weeyaan wadada shaqeysta weeyaan inkastoo qaar iska jiraan shanta afraad ilaahay ma simin oo aan karin sida doonto waxay doonaba ay u shaqeynayeen iyaga taas bay u taalaam laakiin badigooga waa dad waxa weeyaan positive weeyaan inaguna dadka inaad ku soo biirtiin oo meesha kuwan ay gaarsiiyeen meel ka sii dheeraysa amba ka sii wanaagsan inaad sii gaarsiisiin baa loo baahan yahay wadankuna aad buu ballaaran yahay waa continue waa aad buu ballaaran yahay xilliga 600 oo 800 900 oo kun oo qof waxba kama bedelayso hadday kol qura la soo qaado oo la keeno Canada waxba kama bedelayso xilliga nasiibkiinu aad buu ballaaran yahay as urnina Canada ma baa kokol waxa jirta provinciyaasha wala yar adkaya qaar situation dhaqaalaha aan waxba yareegan laakiin even iyadoo sidaa iyo haddana waa la yimaadaa oo maxaan ku uraahideyn anu waxaan iga hor iska dhigtaa shooskiina qaata dinadii ku cishida ku labaad ku cishida laakiin iclaanka haysta maxaan ku uraahideyn informationyaasha iyo waxa u baahan tihiin qor soo diyaariya waa muhiim weeyaan ha ka niyad jabinina degdeg iyo fudaydka badan iska daaya waxa waa wax loo samro waa wax maxaan ku uraahideynay waqti qaata
dhaqaalana wuu qaataa laakiin waxaa dhici karta in dhaqaaluhu imika waad arki doontiin waxa weeye maha dhaqaale saa usii badan igama galayo laakiin waqti badan baan iga gali iyo samir badanna way u baahan tahay yaan u malaynaa insha allah hadduu ilaahay na gaarsiiyo way nii fududaan midda kale aan rabayna waxa weeyaan horta insha allah hadduu ilaahay na gaarsiiyo dadku waxaan badiga waxyaabaha la weydiiyo waxaa kamid ah waxaad ka hadashaaba laga yaraa dadka halkan jooga waxyaabo ku saabsan laakiin kuwa maba joognay maxaabad nagala hadliba dee fidiyoyaasha kolkaa imana unbaad kuwaas wax noo tarayaan ma kuwa soo socda badiga ka hadal waa run oo maxaan ku raahideenay waan insha allah hadduu ilaahay na gaarsiiyo fidiyoyaasha dambe bilaabi doono sida jaamacadaha ani sheegayo sida loo dhigo inta jirta sida loo kala dhiganayo ومياش وني لب بحني وأركيان بحندونا إن شاء الله سيدان بدو حينيسين وين سويا ليان ورجل ويسكب اللارن تاي وينسكوين تاي محاك الله حري وحويان كوكلو حجر دون إن شاء الله فيديوهات كلو عند حق الجلين دونو كوسابسن وحيا وحيابا كل فيديو جدا ملكين ورت مد وين الجريتين فيديوهاش عن حينا يو أنا ورت وحويان فيديوهاش وأركسين ما وحن صوت ياري ويان badigaana waxyaabahan aan leeyahay wax gobay ma aha sheeko ma aha heesi ma aha waxa weeyaan ma aha maxaan ku maawilina ma aha waa nolol idil qof waxaysanaya xilliga wixii lagu hadi lahaa amba lagu jidayn lahaa waxaan ii sheegayo waxa muhiim ah waxa weeyaan waxaan xogteedii inaan siiyo halkan waxa ka keenay waa inaan hadiyo jeer la qaybsado si aad iniguna wixii aad u eegi lahaydeen aad u garan lahaydeen waxaan inuu wax macquul yahay wax qancinaya wax maskaxda gali karaya wax nacam dee meeshii laga soo saaray la heli karayna inay tahay oo iniguna dee is leedihiin waxaan waa meel baad ku gaari karaysiin amba xubnii qaban karaya waa inuu noqdo haddii kale wuxuu noqonaya wax bilaa macni noqonaya iniguna insha allah kii wixii kuwii wax ku qaato ilaahay aan iga dhigo oo ka faa'iidaysta ana ilaahay kuwii ajar ka siiyo ilaahay iga dhigo insha allah hadduu ilaahay na gaarsiiyo waxaan ii dhaafay insha allah khayr badan baan nii rajeynayaa sidaa nabadgelyo maalin wanaagsan amba habeen wanaagsan waqtigeeni tahay وناكسن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.